kala tegidda Fahiima iyo Qadar baraangi miya mise waa run? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Channelka daawanaysiin waa Leyla Axmed official. meel walba adduunka aad joogtiin waan salaamay Soomaaliyeed. maanta maxaan ka hadli rabaa Fahiimo iyo Qadar. Fahiimo iyo Qadar sidee uga hadli rabaa? Fahiimo horta iyo Qadar halkaan ka salaamaya waa dad Soomaaliyeed aan jeclahay oo ayagoo lamaana ah aan ku bartay YouTube-ka. ayagoo YouTubers aan bartay qofna labadood kamid qof aan aqaan kuma jiro. halkaan waa salaana ka marsinaya qaali ah. waxaan leeyahay maanta waxaan ka hadlayaa Fahiimo. waxaan ku leeyahay horta Qadar oo soo laabanaya. Fahiimo waxaan ku leeyahay kiim goyn hore u soco. waa dareemi karnaa anaga gabdha Soomaaliyeed hadaan nahay waxa aad ka hadlaysid waan dareemi karnaa dhibaatadaada. goon lagama dhalinin waxna lagama dhalinin waxna laguguma sameeynin. waxa lagugu sameeyay waa wax ah aragta wasa u sheegtay waa ah ibaro iyo wax khibrad ku ah oo ka qaadatay khibrad oo ka ogaatay adduunka wax ka jiro. wax adduunka ka jiro wax dad badan lagu sameeyay wax kaliya lagu sameeyay ma ahan. midda kale aan ka hadlayo waxay tahay Qadar. Qadar waxaan ku leeyahay waxa sameynaysid wax baraangi ma ahan. wax micnaha aad ugu sameynaysid wax oo micnaha ku talagal ah. aniga waxaan ku leeyahay waxaan ahay gabar Soomaaliyeed. waxaan ahay qofkii kula hadli lahaa qofkii ku fahmi lahaa. aniga kuma dhahayo maxaa isku furteen maxaa ku kala tagteen maxaa niga dhaxeeyo. waxaan ka hadlayo waxay tahay dhibaatada maanta taagan oo anaga dhan la soo kiciyay oo maanta dhan anaga dhan Soomaali ahaan aan ka hadlayno. ma ahan inaan xumaanta aan zaaidino xumaanta aan maanta aan sheegno laakiin waa inaan kula hadalnaa. waxaan kula hadlayaa si walaaltinimo kula jirto si qurux badan. waxaan ku leeyahay wax baraangi lahaay ma jiro oo wax jiro oo sax ah oo ayadan ay ka hadashay Fahiimo ay horena u sheegtay. waxaan ku leeyahay waranka waxa la yiraahdaa waranka qofka kugu taago oo kugu mudo iyo qofka kugu kilkilo waxa ka daran qofka kugu kilkilo. maanta inaad micnaha aad ku kilkisho waa wax laga qurux badan yahay. waxay Soomaali u jeedana iska indha tirta ma ahan ba aslanba wax loo jeedo waadax ah. ma ahan gabdhaha Soomaaliyeed inaad social media la soo gashin aad ku faantiin barin aad ka faantiin ma ahan absolute kaas waa qalad. waa inaad gabadha Soomaaliyeed oo walaasha ah maha ajaanib waxa ka hadlay waa gabadha walaasha ah kula hadlay Qadar. gabadha walaasha ah aad la soo gasho social media idinkoo qurux badan oo isla socotiin hal mar aanay baranay oo idinkoo faraxsan. maanta daa kala tagtiin isfahmwa maxaa isku fahmoysay maxaa kala neema dhaha adduunka isfahmo oo ka dhacaya. labada qofna waxay ku kala tagayay u taala waxa anaga ka hadli karna ma qof ka hadlana qalad ay ku tahay. laakiin ma ahan inaad adiga aad micnaha soo fariisatid aad ka hadashid aad brand waayo 6 bil brand socday 6 bil brand socnaa adduunka meel ku jira ma lahan. anaga ciyaal manihin dad weynanahay dhibkeedan wuu dareemaya hadaa ayada ka hadlin anaga ka hadleeno ma fahanti wax gool laga dhalin ma jirto. ha isdihin adiga qofka la hadlayo waa adiga ha isdihin inaad gool ka dhalisay gool maada ka dhalinin. hadaad inaad xumaanteeda mar labaad aad soo kicisa isku daysan sumcadaada ku dhamayso koow waxa ku dhumaaya magacaada labo waxa ku dhumaaya social media ama dadka ku yaqaan ama live ku yaqaan ama social media ka arkay micnaha agtooda sharafta aad ka leedahay. saddex sharafta Ilaahay ku siiyay ixtiraamka lagu hayo ha iska qaadin. wiil waxa tahay ma sha Allah oo fiican oo muxtarama inaad iska qaado ma aha. gabadha walaasha micnaha inaad ku ciyaarto ma aha. ma fahantay waxaan ku leeyahay jooji waxa wadid waa iga codsi adiga ilaalinaya sumcadaada sharaftaada wax adiga ku dana waxaan ku ilaalinaa xitaa ani aqoon ku malihi Fahiimana aqoon malihi. laakiin dibkaan dareemi karaa marka Fahiimo dib aad ku dhufatid waxa aniga inuu igaara amal ila tahay. gabar la xumeeyna aniga aslan ma arki karaba. videogi ugu hor video ka horeeyna waan soo dhigay gabar la xumeeyna aniga aslan ma arki karo. ma fahanday marka waxaan jeclahay Qadar meesha ugu baxaya. Qadar waa inaad micnaha waxaad wadid joojisid si walaaltinimo kula hadlaya oo canaan ku jirto oo gabar walaasha ku canaanayso jooji waxa wadid. ani cafa ma ku caynaayo fadaxintaada ma qaadaysaan oo ahaa sidoo ahaa sharikaas oo maanta kaanu yahay kuma dhaayani
waxaan ku leeyahay wax kala raaso aad maanta ku shaqo tagtid gabadh walaasha shalay aad ka tagtay oo calafkii nasiibka isku weyseen ha ku soo shaqo tagin midaas waa mid dadka waxay dhahayaana macnaha khibrad ka qaado wixii ku anfacayna qaado wuxuu ku anficayna ka tag midda kale Fihima usoo laabanaya Fihima abaay macaantu waxaa tahay qof iskeeni social media hadaa noloshaada anaga nolosheena qaaska ah hadaa soo gelino anaga soo gelin marka adiga noloshaada adaa soo geliyay oo dadkaada iyo walaalahaada soo bandhigatay xumaan wad helay farxadna wad helaysaa midaba kartiyaad u leedahay gabar waxaa tahay karti leh oo aan ugu jeedo karti adduunka waxa lagu meel maraan waa karti qofka hadduu karti lahayn meel iska soo bixin kara adduunka ma lahan waxaad fahansamaan waxaan ku leeyahay kartidaada kiin gooyin hore ka soco hore u soco laakiin waxaan ku leeyahay waa inaad hadashaa wad ka hadashaa shalay wad ka hadashay sida isku guursateen sida ku kala tagtay macnaha sida isku guursateen sorry sida isku guursateen farxadiina waa soo dhigtay maanta waa inaad nafistaan ra'yi ahaan leel ahaan saa ka hadlaayo hadaan kugu xadgudbe karaal noqox walaashii qaaliga ma jeclina qalbigaada dhaawac gaarsiyo waxa halka isoo fariisiyo dhibaatadaada waxa fahansamaan ma jeclina kugu degto waxaan ku leeyahay ka hadal noloshaada ka hadal dhibaatadaada haddaadan ka hadli karin noloshaada dhibaatadaada ka hadal kuma dhahay aniga waa mid qaas ku ah laakiin maadaama farxadaada aad soo gelisay dhibaatadaada inaad soo gelisay dhibka kugu dhacay waa anaga gabdho Soomaaliyeed nahay waxaan naqaanaa wiilka hadduu gabadha dhib ku dhaco wiil ma wareysano gabadha wareysana maxaa kugu dhacay see lagu yeelay maxaa ku kala tagteen waa ogahay dada ku soo wacay dada ku soo macnaha kula soo hadlaayo dada macnaha comment ku soo qoraayo jecel xaqiiqada waxay tahay inay ogaadaan hadaa xaqiiqada soo dhigi karin waxaan ku leeyahay asagana uu qadar macnaha uu shaqadiisa uu gudanayo shaqo fiican oo meesha ka wato waxa fiican adna inaad shaqadaada qabsid oo ka soo hadashid dhibaatadaada aslan inuusan macnaha laba qofood ay kala tagaan inaysan xumaan fiicnaan ku kala tagin waa la ogyahay dad weynaanahay inaad macnaha ka hadashid noloshaada haddaad ka hadli karin waa noloshaada adiga wuxuu ku tahay waxaan la ishay qaas ku tahay waxaan ku leeyahay dhiirigelintaada hore u soco hala ciifin waxa soo gali jirtay barnaamijyadaada hore u la soco shaqadaada hore u gudo anagana waxaan ku leenahay garbakaada taaganahay sidaas samaysan waa si fiican gabar Soomaaliyeed sameeyeen gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay gabadha ka daaya qashqashaada iyo wicitaanka iyo waxa weydiinaysiin waxaan leeyahay garab istaaga gabar walba oo dhibaataysan waa inaad garab istaagtaan anagun baa wax isku ah anagun baa isaacideena anagun baa wax walba isku ah wiilka Soomaaliyeed anaguna la dhashtay gabar walba wiil la dhashtay xaqiiqdii wax xumeynaayo waa anaga waxna kala dheer oo meel laga kala xogaamana midda kalena wiilka sidiisa banaanba gabar yaa loo danaanin wiilka naftirkiisa waxa jiro wiil ahaan isku celinaya rag ahaan isku celinaya wuxuu isku celinaya waa walaasha uu isku celinaya waxa laga yaabaa anaga 90% inaan qaldanahay way firqa loo canana laga sameeyay aslan horta awalan inta sugaataan waay laakiin saasay tahayna gabdhaha le anaga wax walba gabdhaha baan siinayna way maadaama daciif aan nahay qalbigeena uu jilcan yahay ragga laakiin ilaahay baa awood siiyo ilaahay baa rag ka dhigay marka ragga waxaan leeyahay dhibkaada qaado waa ognahay inaad dhiban tahay dhibkaada qaado ragoo dhan aan la hadlaaya sidoo kale dumarkan waxaan leeyahay Fihima laga daayo ciyaarta hal laga daayo dhibaatada Fihima adna waxaan ku leeyahay kim goyn hore u soco garabkaadana taaganahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.